war degdega daawadayaal dowladda dalka Iiraan ayaa weeraro culus oo isdaba jooga ku qaaday 3 saldhig military oo dowladda Mareykanku ay ku leedahay bariga dhexe oo ku kala yaala dalka Jordan, Bahrain iyo waliba Kuwait. duqeymahaas ayaa haatan toos u socda xilliga barnaamijkan aynu duubayno. waxaana idinkaga dabageyn doonaa warbixinteenan haddii allaha awoodda la yiraahdo wararkii ugu dambeeyay ee ku gadaaman isweydaarsiga duqeymaha isdaba jooga ee u dhexeeya Mareykanka iyo waliba dowladda dalka Iiraan. waxaana muuqata mar kasta oo mid la weeraro dowladda kale inay ka darayso oo cid kale rooraanaysa aysan jirinin. haddaba daawadayaal taariikhdu waa 10 bisha 6 sanadka 2026 dagaalkuna waxa uu galay maalintii 103 mana muuqato in uu dhowaan soo afjarmayo. haddaba ikhyaarey u diyaar garooba wararkii u dambeeyey iyo meesha xaaladdu marayso. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaa noo soo socda war hadda ka soo baxay ilaalada kacaanka dowladda dalka Iiraan oo ku saabsan duqeymahan isdaba jooga. balse marka hore aynu eegno wararkan. sida halkan aad ka aragtaan Al-Jazeera haatan ay tabinayso ayaa waxa ay sheegtay in dowladda dalka Iiraan ay duqeymo ay weeraro ku qaaday Bahrain, Kuwait iyo Jordan kuwaas oo argoosi ah kadib markii dowladda Mareykanku ay weerar ku qaaday habeenkii xalayta ahayd. haddaba weeraradaas ayay sheegtay Iiraan inay haddaba la beegsatay saldhigyo military oo 3 balse intaa ka hor dowladda dalka Jordan militarigeeda ayaa sheegay afhayeenka militarigeeda ayaa waxa uu sheegay Iiraan inay 5 gantaal ay ku soo weerartay. 5tiina waa sida ay iyagu hadalka u dhigeen waa Jordan ay markaa 5tiiba ay ka hortageen oo difaacooda cirka oo dhulka dhigay. laakiin Iiraan ayaa warkaa ka duwan soo saartay. waanu imaan doonaa goordhow haddii alla yiraahdo. daawadayaal waa soo dhaweynayaa waa warar degdeg oo haatan iska soo daba dhacaya marka ii dulqaata haddii alla yiraahdo. haddaba Iiraan maxay tiri? ilaalada kacaanka dowladda dalka Iiraan ayaa waxa ay sheegtay sida halkan aad ka wada aragnaba ayaa waxa ay sheegtay in ay weerar qaaday isla mar ahaantaasna ay la beegsatay diyaaradaha Mareykanka oo ku dhaartay F-35ka saldhig military oo ciidamada cirku ay leeyihiin oo Jordan ku yaalana weerarkaas ay ku qaaday. iyagoo hadalkoodii sii wata ayaa waxa ay sheegeen in ay duqeymo isdaba jooga ay ku qaadeen dalka Jordan saldhigga military ee Mareykanka ku yaala ayna u adeegsadeen gantaalada ridada dheer ee markaas Iiraan ay haysato. sida oo kalena waxa ay sheegeen markaas maadaama Jordan ay saldhigyo military oo Mareykanku leeyahay ay ku yaalaan beegsidu inuu sidaas yahay. waxaa xusid mudan daawadayaal Jordan inta badan Bahrain iyo Kuwait iyo Imaaraadka ayay weeraraysay. Iiraan aan idhaahdee Bahrain iyo Kuwait iyo Imaaraadka ka horreeyay. Jordan waayahan maanan arkinin marka waxaa muuqda dagaalkii inuu bilowday balaartay. ilaalada kacaanku hadalkoodii sii wada ayaa waxa ay sheegeen waa si iyagu hadalka u dhigeen in ay markaas digada ka dhigeen oo ay burburiyeen gantaaladooda ridada dheer markaas 4 target ama 4 beegsi in ay markaa burburiyeen oo bayskaas ama saldhigga militariga ciidamada Mareykanku ay Jordan ku leeyihiin ku yaala ay la beegsadeen oo ka mid tahay diyaaradaha F-35ka oo fighter jetska iyo waliba command control centerka xaruntii laga maamulayay markaas isgaarsiinta iyo ciidamada saldhigga militariga markaas aas oo ahayd oo aysan ka maarminin ayaanu digada ka dhignay ayay yiraahdeen. diyaaradaha ma aysan sheegin taladoodu inta ay tahay laakiin waxay sheegeen in ay markaa diyaaradahaas ay burburiyeen. waayahay waryaha caanka ee Barack Rafiid exo u shaqeeya ayaa waxa uu la sheekaystay una warramay markaas xubin sare oo ka tirsan dowladda dalka Mareykanka. saacad ka hor warkaan uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uuna sheegay mas-uulkaas in uu u sheegay in ay Iiraan 4 ballistic missiles iyo diyaaradaha droneska oo iyagu iskooda isku wada oo aan tiradooda la sheeginin ay markaa ku weerareen 3 saldhig military ee ku yaala bariga dhexe ee Bahrain, Kuwait iyo Jordan. in uu mas-uul sare uu sheegto in saldhigyada la bartilmaameedsaday waa arrin culayskeeda iyo miisaankeeda leh.
haddaba maxaa keenay duqayntan haatan iiraan ay qaaday ee ay ku tilmaantay argoosi ay ka argoosanayso weerarkii ay ku soo qaaday dowladda maraykanku habeenkii xalayta ahayd inta aynan arrintaas aynan u gudagelinin waxaa naga xasuusin ah maraykanku inuu iiraan ku eedeeyey habeenkii isniinta ahayd lasoo dhaafay saaka waa arbaco habeenkii isniinta ahayd lasoo dhaafay in ay diyaarad markaas militariga ee kuwa qumaatiga u kacee Apache helicopterska la yiraahdo helicopterka in ay soo rideen haddaba 3 saac ka hor ayaa markaas taliska dhexe ciidamada maraykanka waxa ay soo saareen warbixintan ay sheegeen markaas inay soo gabagabeeyeen weerarkii ka dhan ka ahaa dowladda dalka Iiraan oo ay markaas ahaa mid isdifaaca kadib markii diyaaraddaas ciidamada Iiraaniyiintu ay soo rideen oo diyaaraddaas ay uga argoynayeen sidaa awgeed ayaan weerarka u qaadnay ayay leeyihiin wixii faalaha dib baan uga imaan doonaa balse arrintaas ayay daaran tahay ayay yiraahdeen marka waa soo gabagabeynay markii ayagu sheegteen inay soo gabagabeeyeen oo la islahaa xaggaas halka dhulka la dhigayaa ayay Iiraan waxay bilowday inay hurgufto gantaaladan 3 jiho ee kala duwan ku wajahan Kuwait Bahrain iyo waliba Jordan waxay wararku intaa ku darayaan Bahrain meesha ay bartilmaameedsatay inay tahay markaas Fifth Fleet-ka waxa loo yaqaano oo ah saldhigga ciidamada badda ee Maraykanka ugu weyn oo bariga dhexe ku yaala kaasoo dalka Bahrain ku yaala horey waxaynu aragnay wararkii CNN-tu ay tabisay markaas investigationka ay soo sameeyeen baaritaanka qotada dheer haddaan af Soomaaliyeyno ay soo sameeyeen ayay ku sheegeen saldhigyadii burburka ugu badnaa inuu kaasu ka mid ahaa oo Fifth Fleet-ka ah Maraykankuna waa inkireen waxba kama jiraan ayay yiraahdeen laakiin dhanka kale Maraykanku waxa uu qirtay haatan qoraalkan ka muuqata dagaalka inaan bariga dhexe laga hagaynin ee laga hagayo Maraykanka gaar ahaan Tampa Florida in laga hagayo ayaa hadda halkan ku qoran oo dagaalka halka ayaa laga hagayaa arrintaasna waxaa la sheegay inay sabab u tahay burburka baaxadda weyn ee Iiraan ay u geysatay saldhigyadooda militariga sida ay sheegtay warbaahinta Maraykanka laga leeyahay ee markaas CNN-ta iyo kuwo kale oo markaa dhinaca bidixda u janjeera waxay arrintan daawadeen dhinaca kale ku su'aalaysaa xilli Donald Trump uu leeyahay maalmaha soo socda waxaan qalinka ku duugi doonaa heshiis annaga iyo Iiraan noo dhexeeya ra'iisul wasaaraha Israa'iilna uu yiri Maraykanka uma eka inuu naga feer dagaalamayo Israa'iilay u diyaar garooba dagaal annagu kaliya aanu qaadno oo Iiraan aynu markaas ku qaadno marka waxaa halkaa ka muuqata Maraykanka iyo Israa'iil in aysan isku aragti iyo isku hadaf marnaba dagaalkan aysan kala hayn Maraykanku waxa uu rabaa khasaaraha soo gaaray inuu intaa ku ekaado dhaqaalaha sii burburaya iyo maciishada cirka ku sii shareey cirka iyo maciishada cirka ku sii dhageysa ee sii baahaysa qiimaheeda la goyn kari laayahay in la xakameeyo ayuu rabaa doorasho aad iyo aad culusna waa ku soo socota oo uu doonayo markaas in uu doorashadaas uusan ku fashilminin maxaa yeelay doorashadaas hadduu ku fashilmo Donald Trump xisbigiisu labada aqal wuu luminayaa doorashada soo socotana waxaa la leeyahay darsi adag in loo dhigi doono ayay u eg tahay dhanka kale daawadayaal Iiraan ayaa lagu soo warramayaa inay doonayso in ay arrintaanu ay sii socoto oo ay sii jiitanto oo loo dhowaado midtime electionka ama doorashadaas Donald Trump doorashadaas Donald Trump uu haatan ka cararayo oo uu isleeyahay markaas ha ku fashilmina Iiraan waxay rabtaa inay halkaa gaarsiiso oo taariikh ay dhigto oo madaxweyne dambe oo Maraykana oo kusoo duulaa uusan jirinin oo intaan duulaanba la soo qaadanin dib loo xasuusto daqaradii ka soo gaaray Iiraan iyo jabkii siyaasadeed kii dhaqaale iyo dhimashada dhaawaca iyo dhaqaalaha balaayiinta lacagta kor dhaafay waxaan ka hadlaynaa 30 bilyan ayaynu ka hadlaynaa dhaqaalaha ayaa ilaa haatan ku baxay dagaalka Iiraan waxba yaraatee yoolashii Trump uu dhigtay iyo Netanyahu oo la soo taabtayna ma jirto oday da'ah oo daalan
ayay kurka ka jareen iyo 170 caruur ah duqaymihii Maraykanka iyo Israa'iil ay qaadeen inkastoo leeyahay iskuulka Maraykanka ayaa duqayntiisa ka dambeeyay Maraykankuna uu leeyahay baaritaan ayaa ku socda su'aasha isweydiinta daawadayaal waxa ay tahay imaaraadkii Israa'iil aad ayay saaxiibo u yihiin haatan ma aragno Maraykanka Iiraan oo imaaraadka weeraraysa maxaa isbedelay markuu dagaalku socday wixii ka horreeyay dhacday Iiraan weeraradii ugu badnayd inay ku qaaday dowladda dalka imaaraadka 2800 ayay diiwaan geliyeen dowladda imaaraadka carabta waxa ayna sheegeen saaxiibnimada dhow ay leeyihiin Israa'iil iyo Maraykanka oo saldhigyo military ku leh iyo mar dambe oo dib laga sheegay markaas Iiraan inay weerar soo qaaday Iiraan yaan oranay imaaraadku inuu ka qayb qaatay oo ka feer dagaalamayay Israa'iil iyo Maraykanka meesha boqortooyada Sacuudiga ay gacmaha ka laabatay iyada oo dalkeedii duqeyn ay Iiraan ku wado marka waxa ay u weerari waayeen imaaraadka waxa la leeyahay dowladda dalka Iiraan waxay bedeshay taagtigeedii iyo siyaasadeedii meesha warar kale ay sheegayaan in imaaraadka lagala hadlay Iiraan oo la yiri weeraradaas joojiya xaqiiqadaas warkaas xaqiiqadiisa ma xaqiijin karno laakiin waa warar kale isla dhex marayo ee dadka ka faalooda arrimaha ammaanka caalamka ay aad iyo aad uga faaloonayaan ay leeyihiin arrintu halka ayay daaran tahay si kastaba daawadayaal ha ahaato dhiig ayay kala furteen imaaraadka iyo dowladda dalka Iiraan waxaana muuqata in la sii kala fogaanayo si kastaba daawadayaal ha ahaatee weeraradan waxaa la leeyahay khobarada ka faalootay waxay leedahay waxay weeraradan ay signal u yihiin ama tusaale u yihiin waxa soo socda oo laba weji leh waa wejiga koowaad inta aan markaa la wada fariisanin oo arrinta la dejinin ayay rabtaa qolo walba inay siyaasadeeda gudaha ay culayska ka haysa ku demiso oo ay tiraahdo weeraradaas ayaanu qaadnay guulo ayaanu keennay cadowgeeni 10 ayaanu dhignay laakiin hoos waxaa ka socda wada hadallo hadda la leeyahay meel fiican ayay soo gaareen oo wada hadalladaas intaysan dhicinin ayaa qolo walba doonaysaa in ay markaa cadgoosato ay ku faanto ku gorgortanto tusaale Netanyahu waxa uu weeraray Beirut Iiraan ayaa ishayn weyday waatii ay weeraray xuutiyiintuna ay ku xigeen habeenkii isniinta ahaa diyaarad ayaa Maraykanka laga soo riday Iiraan waxay tiri anagu diyaaradda kas uma aanan soo ridinin oo ku talagal ma aanan ahayn laakiin waxaa laga yaabaa wiifta inay digada ka dhigtay haatan waynu ognahay waxa digada ka dhigay diyaaraddaas iyo xogteedii muuqaalkii kan ka horreeyey ayay Brit Somali TV kugu soo gudbisay Maraykanku waa kan weerarka qaaday ee markaa yiri 3 saac ka hor weerarkii waa soo gabagabeeyey oo waa argoosanay dabadeedna Iiraan ayaa ka dabageysay marka waxaa muuqata midimidi ku taag iyo qolo walba inay rabto gacanta dambe iyadoo inay yeelato anaa u dambeeyey oo jugtii u dambeysay geystay inay tiraahdo Bahrain iyo Kuwaitna waxa ay noqdeen markaas target u dhow Iiraan u sahlan isla mar ahaantaasna gantaaladeedu inay ka dusayaan ayaa muuqata inkastoo mararka qaarkood laga hortago koonkii ka horreeyay waxaan ogeyn Kuwait International Airport inay digada ka dhigtay Iiraan waxay tiri weerarkaas anagu kamaanan dambaynin laakiin ayada ayaa lagu shaabadeeyay goorma ayaa la wada hadlayaa oo la wada fariisanayaa arrintaas Iiraan ayay ka go'da ayaa la leeyahay maxaa yeelay Iiraan wada hadalna furi mayso toosa sidii horey u dhacday oo kale maxaa yeelay Iiraan waxaysan u furaynin qodobadeedii ayaan san ka dhex arkinin wada xaajoodka Trump dhinaciisa ka imaanaya marka intay ka xaqiijinaysa Iiraan oo ficil ahaan loo tusaya Iiraan oo kalsooni la dhisaya tusaale la taliyaha dhinaca militariga Mujtaba Ali Khamenei waxa uu sheegay oo cadeeyay oo sheegay CNN waraysi la yeelatay oo halkan kaga soo deynay in 24 bilyan ee dowladda dalka Maraykanku ay hayso lacagta ay hayso 24 bilyan in Iiraan loo soo hormariyo dabadeedna wada xaajoodku ay bilowdaan Strait of Hormuzna Iiraan ay furto laakiin khidmad ay ka qaado oo luqadii ayay bedeleen laakiin waa isla meeshii oo markii hore waxay yiraahdeen 2 milyan oo canshuuran ka qaadana cidii horteena marta oo soo marto marinbiyoodkaas haatan waxay yiraahdeen waa khidmad oo khidmadu
way ka duwan tahay canshuura waxay ugaga duwan tahay luqad ahaan marka la eego iyo macno ahaanba adeeg lagu fidiyey wax yara lagaa qaaday xawaalad baa dirsataa $5 buu kaa qaadaa boqolkiiba waa ku canshuuraya laakiin kuma yiraahdo marka sidaasoo kale ayay ka mid ka tahay ciidamaha meeshii jooga waardiyanaya traafigii hagaya ekoos lacag waa inaad lacagtaa bixisaan weeyaan marka iiraan luuqadii ayay bedeshay Donald Trump waxa uu yidhi luuqadda ayaan dib ugu noqonaynaa iyo wada xaajoodka bishii March ee soo dhaaftay ilaa iyo haatan 37 jeer ayuu sheegay inuu qalinka ku duugayo oo wixii qodobadii waaweynaa dhan laga heshiiyey wax ka hagaagayna ma jirto waxba daawadayaana war kugu daalinin meesha xaaladdu ay marayso xilliga haatan waa halkaas ayay maraysaa duqeymahaasuna waa socdaan xilliga barnaamijkan aynu duubayno